baddii kala gooday mucjisadii nabi muuse calayhi salaam. qisooyinka qur-aanku waa xusuusta taariikhi eebbe ku baraya bini aadamka jidka xaqa ah oo loogu talagalay inay ku waansamaan. qisadii nabi muuse calayhi salaam waa xasuus mucjiso ah oo na tusinaysa awoodda ilaahay iyo badbaadinta addoommada wanaagsan ee hoggaansama. maalin taariikhi ah ayay ahayd maalintii Caashuura ee baddii weyneed ee badda cas loo yaqaan ama webigii Niil, labaduba waa la yidhi, ee aan badweynta ka sokayn. alle uu bedelay jid la dhex mari karo. maalin biyihii la joojiyey, baddii berri loo rogay, dadkii rajo beelay oo u ekaa sida kuwa maanta Khazana waddo badbaado leh iyo gurmud rabbaani ah ay heleen. juquraafi ayaad igala socotaan, madal lagu soo gudbiyo tagtada iyo taariikhda ee haddii aad nagu cusub tahay hogga falowdhe. fircoon waxa uu ahaa boqor kibir iyo dulmi isku darsaday. dadka bani Israa'iilna waxa uu ku hayn jiray adoonsi, nooca u liita tabta maanta ee ayagu muslimiinta reer Ghaza ku hayaan oo kale. wuxuu ku khasbayay shaqooyin aanay ka bixi karin. wuxuu laayay carruurtooda tabta ay maanta ayagu u duqaynayaan dhallaanka reer Falastiin. waxa uu fircoon sidaa u samaynayay si uu u xakameeyo awooddooda iyo si uu u ilaashado xukunkiisa. laakiin ilaahay wuxuu doortay muuse. ilaahay waxa uu u xushay inuu maqashiiyo hadalkiisa oo keliya nebi ama rasuul ugumadayna wuxuu ka dhigay kaliimu rabbilcaalamiin. muuse wuxuu ku koray qasrigii fircoon. waxaa alla sidaa ugu dooray inuu la qabsado fahmana dulmiga iyo isla weyninka guriga fircoon dhex yaalla, si uu mustaqbalka u noqdo badbaadiyaha ummadda la dulmiyey. markii muuse uu qaan gaadhay, da'dii takliiftina uu fooda soo geliyey, waxaa alle uu guddoonsiiyey arrin culus oo ah fariinta eebbe. waxaa lagu amray u tag fircoon. waa uu xadgudbay, laakiin fircoon isla weynidii ayaa mar kale hoday. wuxuu ku faanay boqortooyadiisii. wuxuu ku jawaabay miyaana ahayn mulkiilaha Masar. muuse wuxuu ku adkaystay xaqa. wuxuu la yimi dadaal oo ah sunnada rabbi ee dhulka. waxaa kale oo uu la gola yimid calaamado rabbaani ah oo ay ka mid tahay u noqonaysa mas gacan ifaysa, biyo dhiiga, injir imtixaana iyo muujin awoodo qarsoona. markiise uu iskawaalkii fircoon sii kordhay, cadaadiskiina sii kordhiyey, ilaahay wuxuu amray muuse, kaxee addoommadayda habeenkii. waxay muuse iyo xertiisu baxeen habeen mugdi ah, iyadoo dad badan oo dumar, carruur iyo odayaal ay raaceen. waxay ka qaxayaan dhulkoodii meelay u socdaan mooyi. waa tabta maanta haddii marinka Masar ee Ghaza la furo dhici lahayd. jidkii barriga ahaa waa soo xidhmay. bad weyn ayaa hortooda gudban, ama biyo madow ayaa xanibay. cadow manaxa ah ayaa gadaashooda cirbinaya. hadda meel loo baxsado ma leh. indho taagtaagan, cabsi iyo isdhiib ayaa reer bani Israa'iil ka soo haray. amar alle ayaase soo fulay. murugadii ayuu amarkaasi fayday. ku dhufa badda ushaada. biyihii socday waa gudheen. baddiina waxay isu gudisay buur leh jid la dhex maro oo waddo laami ah oo kale ay dhexdeeda marto. laba gebi ayaa abuurmay, waxayna noqdeen sida gidaar aanay biyuhu dhaafi karin. qowm muuse waxay dhex mareen baddii iyagoo baqanaya, dhex lugaynayana dariiq ku yimi mucjiso rabbi oo uu nebigiisa muuse siiyey. markii fircoon iyo ciidankiisii galeen badda si ay u gaadhaan una qabtaanna, ilaahay wuxuu amray biyihii inay ku soo laabtaan sidoodii hore. reer Qibdi iyo boqorkoodii fircoon halkaa ayaa lagu halaagay oo ku baaba'een. baddii ayaa liqday oo cuntay. awooddii ugu weyneed ee dunida xilligaasina waa boqortooyadii fircoone. waxay noqotay waxa la soo dhaafay oo taariikhun ah. alla maxay beera ka soo tageen, nimcooyin la soo dabamariyey, maxaa qasriyo laga soo saaray oo biyo dhexdooda lagu halaagay. dhacdadan ma ahayn oo keliya mucjiso ay biyo kala go'een oo dhul la maro badi yeelatay, balse waxay ahayd fariin rabbaani ah oo ku socota jiil kasta oo kuwa maanta xadgudbaya ka mid yihiin. waxayna baraysaa in badbaadada runtii aysan ku jirin tirada, awoodda ama hubka, balse ay ku jirta iimaanka iyo kalsoonida ilaahay. muuse wuxuu guusha ku hantay dulqaad iyo tawakkul, halka fircoon ku bahay kibirka, xadgudubka iyo isla weynida. maalintii baddu kala go'day waxay noqotay xasuus iyo astaan warisay inuu xaqu mar walba guulaysto, xataa haddii beenta ay xoog leedahay oo hubiya nukleer ay haysato. marka aad maqasho qisada nabiyullaahi muuse calayhi salaam, ha u arkin sheeko fog oo xilli hore ah, ee waxaad u aragtaa tagtana baraysa kalsoonida, samirka, iyo in markasta ilaahay la jiro kuwa xaqa ku taagan. kalogii baddu waxay ahayd calaamad ina tusinaysa in markasta
oo bani aadamku uu ku dhacay niyad jab, awooddooduna soo xiranto, ama cabsida aadanaha laga qabo bartii ugu dambaysay ay joogto, waxaa jirta badbaado oo uu u bedeli karo Alle rafaadkaaga dariiq aad ku guulaysato.